iyadoo ay jaamacadda Camuud qaybteeda waxbarashada heerka labaad isku diyaarinayso qaabilaadda iyo soo dhaweynta ardayda tirada badan ee iska diiwaan gelinaysa barnaamijyada kala duwan ee masterta iyo PhD-da ayaa waxa uu sidii caadada ahayd hormuud ka qaybta waxbarashada heerka sare ee jaamacadda Camuud Dr. Cabdifataax Xaaji Daawud Warsame uu ka warbixiyay tirada takhasusaadiyada diyaarka ah ee ay waqti xaadirkan bixinayaan qaybtan masterta iyo PhD-da jaamacadda Camuud waxa ay bixisaa programmo badan oo la xiriira master iyo qaar la xiriira PhD marka programmada aan bixino ee masterta iyo PhD-du waxa ay yihiin ilaa 49 program 49ka program ee aan bixinay masterta iyo PhD-du waxa ay ka hoos tagaan 5 qaybood 5 faculty la yiraahdo social sciences and humanity faculty la yiraahdo business administration faculty la yiraahdo engineering and technology faculty la yiraahdo shareeca and law iyo faculty la yiraahdo health sciences marka 49 kaasi intaasay hoos tagayaan dhammaan 49 kaba way furan yihiin admission koogu imika uu furan yahay ilaa bisha 10aad bartankeega Dr. Cabdifataax Xaaji Daawud Warsame hormuud ka qaybta waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud isagoo hadalka sii wata ayaa waxa uu isdul taagay barnaamijka dhinaca online-ka ah ee ardayda uga adeegayaan oo barnaamijkaas oo hadda noqday mid casri ah oo arday badan ka faa'iideysteen qaybta online-ka waxa lagu dhigan karaa meel kasto oo aad joogto programmada qaybtan ka baxaya waxa ay yihiin program adigoo jooga xafiiskaaga adigoo jooga gurigaaga aad dhigan karto laakiin marka ay timaado imtixaanku yimaado imtixaanka wax lagu galaa face to face magaalada kuugu dhow ayuu qofku tagaya marka halkaas ay jaamacaddu ay kaga qaadaysaa imtixaanka programkan muxuu ahaa online-ku waxa uu leeyahay waa la mid yahay kuwan kale ee regularka ah waxa kaliya lagu kala duwan yihiin waxay tahay kuwan regularkii waxa macallinkii waad soo joogtaan kan kalena macallinkii waxay tahay internetka dhexdiisa ka wada hadlaysaan laakiin xiisadihii la qaadanayay maalin walba waa la qaadanaya oo weekii intii xiisadood ee kuwan regularka la qaadanayay baa kuwa online-kana la qaadanaya sidoo kale Dr. Cabdifataax ayaa waxa uu ka waramay bishaaro kale oo dhinaca xiriirka caalami ah oo ay jaamacaddu samaysay ah iyo faa'iidada ay ardayda u leeyihiin waxa kaloo ay jaamacaddu ay leedahay qaybtan masterta iyo PhD-du xidhiidho jaamacado kale ay la leedahay oo waxa kamid ah jaamacadda Haramayo ee Ethiopia jaamacadda Diridhaba ee Ethiopia iyo jaamacado ku yaala dalka Suudaan marka jaamacadahan Ethiopia xiriirkan la leenahay waxa aan la leenahay xiriir toos ah kuwaasoo programmada aynaan awood u lahayn in inagu bixino aan iyaga kala kaashanay marka programmada aan wada bixinayno iyaga ayaa curriculumkii soo dajiyay iyaga ayaa keenaya macallimiintii shahaadaduna marka dambe waxay noqonaysaa shahaadad labada jaamacadood ay wada saxeexaan oo ay wada bixiyaan shahaadooyinkaasi marka waxay noqonayaan shahaadooyin muctarif ka wada ah dalka Ethiopia iyo dalkan Somaliland adeegyo iyo qorshayaal ay damacsan yihiin inay ku tayeeyaan waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leeyihiin ardayda ayuu sidoo kale Dr. Cabdifataax Xaaji Daawud Warsame hoosta ka xariiqay jaamacaddu waxa kaloo ay muxuu ahaa culayska saaraysaa saddexda arrimood oo kala ah waata u horeysa in waxa la dhiganayo dhan loo dhigto culays kala saaro practicalka inaan kaliya ardaygii xog la siin ee ardaygii xogtii uu qabto oo uu sameeyo ficil u bedelo marka wixii klaaska gudihiisa lagu sameyn karay klaaska gudihiisa lagu sameeyay wixii dibadda ay noqoto in lagu sameeyana dibadda ayaa lagu sameyn doonaa waxa kaloo ay qaybtani ay culayska saaraysaa waxa weeyaan waa qoraalkii markan ardaygu uu practicalkan lagu tababarayo waxa loogu talagalay inuu ardaygu marka uu dhameeyo waxbarashadiisii uu ardaygu toos ugu shaqo gali karo una u baahan doonin moogtahay tababar dambe waxa kaloo ay muxuu ahaa qaybtan masterta iyo PhD-da jaamacadda Camuud ay culayska saaraysaa waa qoraalka
qoraalku waa shay ahmiyad weyn leh marka loo yimaado waxbarashada toosan, laakiin inagu haddaynu Soomaali nahay waxaynu nidhaahnaa waxaynu nahay dad hadalka culayska saaro, oral society ba la yidhaahdaa. marka laakiin waxbarashada tooska la yidhaahdo waxa muhiimadda la saaraa waa qoraalka iyo akhriska. marka waxa aan rabnaa in aan qoraalka culays badan saarno oo ardaygu markuu qalin jabiyo heerka waxbarasho uu wato iyo heerka qoraalkiisu ay isku mid noqdaan. ta saddexaad ee qaybtan ee culayska saaraysa waxa weeyaan waa researchka, waa baaritaanada. marka maanta wadankeena la eego dhibaatooyin fara badan baa ka jira. dib in la xalliyo marka loo baahan yahayna waxay tahay waa in su'aalo fara badan laga jawaabo. dhibtan sidee u jirtaa? maxaa dhibtan sababay? maxaa xal u noqon kara? su'aalahaasi waa in si cilmiyeysan looga jawaabo. marka waxa halkaas soo galay in su'aalaha looga jawaabayo waa in researchka ama baaritaanada cilmiyeysan kor loo qaado. wadankeena maanta markaad eegto aad bay u yar yihiin baaritaanada cilmiyeysan ee la sameeyay. marka waxaan rabnaa ardaygii in aan ku tababarno baaritaano cilmiyeysan, kadibna ardaygii marka uu barto baaritaanadaas uu ka qayb qaato, marka uu qalinjabiyo uu ka qayb noqdo dadka wadankeenan horumarkiisa uu qayb ka noqdo. isdiiwaangelintu inay ka socoto dhammaan xarumaha waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud, ardayda cilmi daalibka ahna ay soo dhaweynayaan, ayuu Dr. Cabdifataax Xaaji Daawud hadalka ku soo afmeeray. isdiiwaangelintu way ka socotaa dhammaan saddexda xarumood ee aan leenahay. xarunta aan ku leenahay magaalada Boorama iyo xarunta aan ku leenahay magaalada Hargeysa iyo online-ba waad isku diiwaangelin kartaan. marka waxa aan idin soo dhaweynaynaa idinkoo dalkiinii hooyo jooga in aad waxbarasho tayo leh aad ka baran karto oo heer master iyo heer PhD ba leh. marka waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada. waxaad noogu iman kartaan dhammaan xarunta aan ku leenahay Boorama, Hargeysa iyo online-ba.